dad badan ayaa ugu qabsaday sidee reer bicyahan uu Salmaan Maxamed uga badnaan karaa. Salmaan Maxamed waa Cali Salmaan iyo Maxamuud Salmaan iyo Ugaar Salmaan iyo Cabdiraxiin Salmaan iyo Ismaaciil Salmaan iyo sabab reer bicyahan kaligii uga badnaan karaa ana idin cadeynaya. qabiil marka laga hadlayo badidiisa waxa lagu qiimeeyaa waa dad iyo deegaan. sax dad iyo deegaan tiro iyo tayo. dad marka laga hadlayo dad inuu badan yahay waxa lagu qiimeeyaa deegaan ahaan. deegaanka reer bicyahan baa idin sheegaya marka reer bicyahan wuxuu sida tusbax afka laga furay u daadsan yahay gobolada bari mudug iyo doolo khaas reer bicyahan ayaa u leh. reer bicyahan waxa uu degaa Boosaaso Gaalkacyo Qaloocan Galaadi Sarhaye Balwanaag Cagaarweyn Bacaadweyn Injiro Kurtunle Qaawane Labile Wardheer Booq Bariscade Dhagafur Dhurwayaale Xargagooye Miiro Xange Dhaqayabuur Jiracle Naago Odays Odawaa Baaltaag Miiro Wacanri Muuse Yoonis Diilin Caano Qararacade Dhagaxjab Laan Wilif Dhudub Dheerdheereley Uule Bannaan Miir Khaliifo iyo Qabakaboodle. haye maxaa idin baxay marka war ma saxanahay bas waan khaldanahay. sideedaba qabiil dhaqaalaha loo fiiriyo siyaasad ahaan loo fiiriyo yaa siyaasadda ku horeeya loo fiiriyo yaa dhaqaalaha ku horeeya loo fiiriyo badi markay tagto number 1 reer bicyahan la shak waa reerka daarood ugu badan way daarood iska daba jarteen daarood reerka ugu badan reer bicyahan way muuqaalka isgaarsiya qof ka soo reer bicyahan oo muuqaalka repost dheh share garay nagu soo bir oo bogeena follow soo dheh follow waa muhiim way muuqaalka isgaarsiya daaqada ugu tir qof ka soo reer bicyahan haddaad dood qabtid waa su'aali qabtid hoos ku soo qor doodaadu waa muhiim hadday jabanta wala arkaya hadday dood sax tan waa la ogaanaya marka hoos ku soo qor wixii aragti gaar aad qabtid muuqaalka isgaarsiya na soo na follow garaya waan salaamaya.